السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود كسر دوada muuqaalkeena cusub magaalo yar oo ku taala bartamaha dalka Bulgaria ayaa sanad kasta waxaa buux dhaafiya gabdho yar yar oo is iibgeynaya ama waalidiin damacsan inay rag ka iibiyaan gabdhahooda suuqan oo gabdhaha yar yar iyo kuwa qaangaarka loo iibgeeyo ayaa waxaa loo raadinayaa niman ay guursadaan oo ay mustaqbalka la wadaagaan suuqan ayaa asal ahaan waxaa loo yaqaanaa suuqa aroosada ee Gebsi haddii qof uu booqdo magaalada Stara Zagora ee dalka Bulgaria wuxuu kula kulmi karaa jidadka magaalada oo mashquul badan dadkuna farxad ka muuqato magaaladan ayaa waxaa la isaga imaadaa daafaha caalamka iyagoo dadka magaaladan soo booqanaya ay ka mid yihiin rag guurdoon ah oo raadinaya gabdho da'doodu yar tahay waa marka kaliya dhammaan dadka magaalada Kaladis ay si wadajir isugu soo baxaan oo ay ugu dabaaldegaan maalintoo dhan qoobka ciyaar muusig iyo cunto oo cunaan gabdhaha da'da yar ee aad loo soo qurxiyey ayaa ku sugan suuqa aroosada hooyayaashooda ayaa sidoo kale la socda iyaga oo niyadda ku haya inay gabdhahooda hesho nin ay guursadaan hooyooyinku aad bay ugu haween yihiin gabdhahoodu markay koraan inay u hoggaansami karaan dhaqanka bulshada dhaqankan ayaa ah dhaqan aad u fac weyn oo ay leeyihiin bulshada Kaladis ay muddo badan ku soo dhaqmeen iyagoo aad u aaminsan gabdhaha waxaa lagu soo xartaa dhar qurux badan iyo dahab dadka reer Kaladis waxay la macaamilaan ay wada xaajoodyo adag ku saabsan qiimaha arooska la galaan ragga ugu dambeyntii ku xalliyaan guurkooda suuqan ayaa waxaa la sheegaa inuu sanadkiiba furan yahay 4 jeer kaasi oo ay dhammaan imaanayaan ragga doobabka ah oo doonaya inay guursadaan hablaha gabdhaha looga baahan yahay suuqa ee la iibgeyn karo ayaa ah kuwa da'doodu u dhaxaysa 15 ilaa 19 jir ah oo aan horey u soo marin waxaana hablahaasi la marinayaa baaritaan lagu ogaanayo gabarnimadooda ama inay guur hore u soo mareen suuqan ayaa waxaa la sheegay inuu si caadi ah u shaqeeyo muddo sannado ah waxaa ugu nasiib badan hablaha la iibsanayo kuwa da'doodu ay tahay 15 sano fursadaha hablaha ka waaweyn 19 sano ayaa waxay aad u yar tahay fursadaha lagu iibsanayo waxaana hooseeya qiimaha lacagta lagu iibsanayo hablaha la iibsanayo ayaa waxaa la ogaaday inay inta badan ka soo jeedaan qoysaska danta yar oo ku nool dalkaasi tani waa maalinta kaliya ee gabdhaha loo ogol yahay inay la kulmi karaan ragga haddii kale looma ogolo shukaansiga sidoo kale nimanku waa inay beeshooda ka tirsan yihiin guurka ka baxsan bulshooyinka ama qoomiyadaha kale waa mamnuuc gabdhaha yar yar ayaa ragga looga iibiyaa lacag gaaraysa 7,500 ilaa iyo 11,300 dollar kadib markii ay gorgortan galaan haweenkan ayaa ku mashquula cunto karin iyo nadiifinta guryahooda marka loo guursado waxaa loo yaqaanaa adeegyaal ama mushaar siin raggooda cilmi baare ka tirsan akademiyada sayniska Bulgaria oo la yiraahdo Velka Kurusev ayaa laga soo xigtay ninku wuxuu iibsanayaa gabadha bikirnimadeeda ma iibsanayo xaaska sida waxaa lagu daawacay wargeyska New York Times waxaana aaminsanahay in si sax loo sheegay dhaqankan ayaa ah dhaqan aad u xun oo ka dhaxeeya bulshada Kaladis in ay u guuriyaan gabdhahooda da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 20 gabdhaha yar yar ayaa xitaa laga saaraa iskuulada fasalka 8aad iyadoo laga cabsi qabo in qof kale oo aan ka tirsaneyn qabaa'ilkooda xado uu qoyskooda hadhow u suurtageliyo inay ku iibiyaan qiimo fiican tani waa sababta habluhu waxay ku xiran yihiin guryahooda tani waxay keenaysaa in boqolkiiba tiro aad u badan ay waxbarasho la'aan noqdaan kaliya boqolkiiba 10 dumarka reer Bulgaria iyo boqolkiiba 16 raggooda ayaa haysta waxbarashada dugsiga sare sida laga soo xigtay bangiga adduunka aad iyo baasida daawadayaal